kulanti wanaagsan daawadayaal idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta qodobada aanu idinku haynana waxaa kamid ah Suudaan oo ay sii lixaadsadeen dibadbaxyada looga soo horjeedo madaxweyne Umar Hassan al-Bashir xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka oo ku baaqay in la qaado xayiraadda dalalka Khaliijku ay saareen wadanka Qatar oo uu ku tilmaamay mid sii daba dheeraatay hay'adda CARE ee muslimiinta Mareykanka oo kulan soo dhaweynaya agagaarka Washington ugu sameysay xildhibaanada muslimiinta ah ee Koongareeska Mareykanka ku biiray wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale daawan doontaan aanu ku bilownay booliska dalka Suudaan ayaa kala eriyadad isugu soo baxay magaalada Khartoum kuwaas oo qayb ka ah dibadbaxyo ka socda guud ahaan wadanka oo looga soo horjeedo madaxweyne Umar Hassan al-Bashir dibadbaxayaasha ayaa isugu soo ururay xaafadda Bahri balse isla markiiba waxa ka hortagay booliska oo dadkaasi kala eriyay tan iyo 19 bishii hore waxa Suudaan ka dhacay dibadbaxyo ay dadku ku diidan yihiin qiimaha 3 jibaarmay ee rootiga taasoo dhalisay in ay dadku caaroodaan isla markaana noqotay halis weyn oo soo food saartay xukunka 30 sano jirsaday ee madaxweyne al-Bashir mas'uuliyiinta dawladda ayaa sheegay in 24 qof ay dhinteen oo ay ku dhinteen rabshadahaasi dhacay laakiin hay'adda Human Rights Watch ayaa iyadu tirada dhimashada ka dhigtay inay gaadhay 40 qof oo ay ku jiraan caruur iyo waliba mid ka mid ah shaqaalaha caafimaadka dadka maanta dibadbaxyada sameynaya Khartoum ayaa waxa ay wateen calanka Suudaan iyo boorar ay ku qoran yihiin nabad cadaalad iyo xornimo dadka dibadbaxyadan qaban qaabiye ayaa toddobaadkan ku tilmaamay toddobaadka kacdoonka looga soo horjeedo madaxweyne al-Bashir meelaha kale ee maanta ay dibadbaxyadu ka dhaceen waxa kamid ah gobolka dhinaca galbeed ku yaala ee Darfur waxaana dibadbaxyada Darfur ay noqonayaan kuwii ugu horeeyay ee halkaasi ka dhacay iyo markii qalalaasuhu uu gobolkaasi ka bilowday urur goboleed ay ku midaysan yihiin wadamada koonfurta Afrika ku yaala ayaa ugu baaqay dawladda Congo in ay dib u tiriso codadka doorashadii dhacday bishii soo dhaaftay ee natiijadii ka soo baxday lagu murmay doorashada oo dhacday 30 December ayaa ahayd doorashadii ugu horeysay ee dalkaasi ka dhacda muddo ku dhow 60 sano Martin Fayulu oo kamid ahaa musharaxiinta tartamayay ayaa sheegay in lagu shubtay doorashada isla markaana uu isagu ahaa shakhsiga sida runta ah ugu guuleystay laakiin guddiga doorashada ayaa iyagu ku dhawaaqay Arbacadii in Felix Tshisekedi oo hogaamiye mucaaradka uu ku guuleystay doorashada urur goboleedka SADC oo ah urur ay ku midoobeen Koonfur Afrika Angola iyo waliba Congo ayaa war-saxaafadeed ay maanta soo saareen ku baaqay in codka dib loo tiriyo waxa ay hubsiimo mar kala siin kartaa kan guuleystay iyo waliba kan laga guuleystay sidaasi waxa lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay urur goboleedka SADC ururka ayaa soo jeediyay in dawlad wadaaga Kongo laga hirgeliyo taasoo lagu soo darayo dhammaan xisbiyada ay kala matalaan Kabila Fayulu iyo waliba Tshisekedi Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in dhawaan weerarkii ay ciidamadiisu ka fuliyeen wadanka Suuriya lagu bartilmaameedsaday hub ay dawladda Iran leedahay isagoo ka hadlayay kulan ay yeesheen golaha wasiirada Israel ayuu Netanyahu sheegay in 36 saacadood ee ugu dambeeyay ciidamada cirku ay weerareen saldhigyada Iran oo ay ku jiraan hubka Iran ee yaala garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dimashq Ra'iisul Wasaaraha ayaa qirtay in weerarkii ay Israel dhawaan qaaday ee Suuriya uu ahaa mid naadira madaxa ciidamada militariga Israel ee xilka ka sii degaya ayaa shaaca ka qaaday waraysi uu dhawaan siiyay wargeyska New York Times in Israel ay garaacday kumanaan bartilmaameedyo ah iyada oo aan sheegan mas'uuliyadeeda xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo oo socdaal ku maraya gobolka Bariga Dhexe ayaa ku baaqay in la qaado cunaqabataynta ay wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadku saareen dalka Qatar taasoo uu ku tilmaamay mid daba dheeraatay booqasho qayb ka ah socdaalkiisa Bariga Dhexe ayuu xogayaha arrimaha dibadda maanta oo Axada waxa uu ku tagay wadanka Qatar Pompeo ma uusan sheegin xilliga ay dalalkaasi ka qaadi doonaan xayiraadda wadanka yar ee Qatar hase yeeshee wuxuu ku celiyay in Mareykanka iyo Qatar ay ku naaloonayaan xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya
dalalka Bahrain, Masar, Saudi Arabia iyo Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa xiriirka u jaray Qatar bishii Juun ee sanadkii 2017 kadib markii ay ku eedeeyeen in ay maalgeliso argagixisada isla markaana ay xiriir la leedahay Iran. Qatar waa ay beenisay eedeymaha ay u soo jeediyeen dalalkaasi xiriirka u jaray. Hay'adda CARE ee u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka ayaa kulan soo dhaweyna u sameysay 3 xildhibaan oo muslimiina oo ku biiray aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka. CARE waxa ay sheegtay in inkastoo weli ay taagan tahay nacaybka loo qabo dadka muslimiinta ah haddana ay guul weyn u tahay in xildhibaano iyaga matala ay ku biiraan Koongareeska Mareykanka. Sahra Cabdi Ahmed oo kulankaasi ka qayb gashay ayaa warbixintan inoo haysa. kulankan waxa uu ahaa mid si weyn ay uga soo qayb galeen dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolada Virginia, Maryland iyo magaalada DC qaarkood. waxaana hay'adda CARE ay sheegtay in taariikhda ay tahay markii ugu horeysay oo tiradii ugu badneed oo dad muslim ah oo 3 gaaraya asal ahaan ay ka mid noqdaan aqalka Koongareeska. Jaylani Hussein waa gudoomiyaha hay'adda CARE ee Minnesota. waxa uu ka sheegay kulankaasi in doorashada xubnahan ay ku soo beegantay waqti xasaasi ah oo dalkan Mareykanka ay ka jirto muslim nacayb si weyn u muuqda. laakiin fursadani waxay tusaysaa dadka muslimiinta haddii isku tagaan, dadka muslimiinta haddii ay dad soo saaraan in ay ka qayb qaadan karaan dawladda, ayna ka hor istaagi karaan oo loo baahan yahay dadka muslimiinta inay ka qayb qaataan dawladda sidii looga hortago cunsurnimada muslimiinta lagu hayo ee runtii ma aragtay dib u keeni karta sida hadda joojinta laga joojiyo dadka muslimiinta ay waddankeena soo galaan oo Soomaaliya ka mid tahay. Dr. Sacdiya Cali Aadan waxa ay ka mid tahay jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Virginia ee kulankaasi ka qayb galay. waxa iyaduna sidoo kale ay sheegtay inay tahay wax lagu daydo oo muhiimad u leh in qofkii ugu horeeyay asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya ee Koongareeska waqtigan ka mid noqotay. qof Soomaali ah wajigiisa oo ka soo muuqdo meel saan oo kaleeta ah qaasatan meelaha sharciga lagu dejiyo hay'adda sharci dejinta waa wax Soomaalida muhiim u ah. Amerika kaliya ma aha, muslimiinta kaliya ma aha, laakiin Soomaali ahaan qof Soomaali oo soo baxay kulligan inaan ku faano ay noqoto wax mar walba hiddiilo ilmaha nagana geliyo. sidoo kale xubnaha Koongareeska ee ku biiray aqalka Koongareeska sanadkan oo ay ka mid tahay Ilhaan Cumar iyo Rashida Daalib ayaa ayaguna ka hadlay kulankaasi. waxaana ay sheegeen in kaliya ma ahan muslimiinta ay cod u yihiin dadka aanan cod ka haysanin sida Ilhaan ay sheegtay oo kale. inta saddexaad ee kulankaasi asna ka qayb galay ayaa ahaa Andrew Carson oo isna laga soo doorto gobolka Indiana. waxaana dhammaan xubnihii ka hadlay goobtaasi ay sheegeen sida muhiim ay ugu tahay dadka muslimiinta ee dalkan Mareykanka inay helaan cid u matasha isla markaasina cod u noqoto marka ay timaado aqalka Koongareeska ee dalkan Mareykanka. waxaa kulankaasi looga hadlay sidoo kale taxanibaadda saaran dhowr wadan oo Soomaaliya ay ka mid tahay dadkooda inay soo galaan gudaha dalkan Mareykanka. inta badan dadka ka qayb galay xafladan ee khudbadaha jeediyay ayaa waxa ay ka hadleen sida muhiim ay ugu tahay muslimiinta dalkan Mareykanka inay xubnaha Koongareeska ee dalka Mareykanka ku yeeshaan dad ayaga matala. Sahra Cabdi Ahmed, barnaamijka kumanaha VOA, Washington. haddana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha. waxaa la diyaaraa Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. aynu ku bilownay kulamo ka tirsan koobka qaramada Asia ee sanadka 2019 oo lagu qabanayo dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa shalay iyo maanta la ciyaaray. xulka martigelinaya ee Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu la ciyaaray xulka India waxaana uu kaga awood batay 2 gool iyo waxba oo ay guusha ku raacday xulka Imaaraadka. India oo aan caan ku ahayn ciyaarta kubadda cagta ayaa ku dadaashay inay iska soo guddo 2 gool balse waa ay u suuragali weysay. kulamada kale ee la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ah kulankii dhex maray xulalka China iyo Philippine waxaana 3-0 ku badiyay xulka China oo wacdaro ka dhigaya sanadkan koobka qaramada Asia. labada macalin ee kala watay Philippine iyo China ayaa ahaa 2 macalin oo rugcada ah isla markaana muddo caan ka ahaa qaaradda Yurub iyo caalamka. xulka Philippine waxaa tababaro u ah Sven-Göran Eriksson oo waqti ka mid ah xiliyadiisa soo leyliyay kooxda SS Lazio ee dalka Talyaaniga isla markaana koobab kula guuleystay.
halka sidoo kale isla Erikson uu soo hogaamiyey muddo 4 sano ah xulka kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska oo uu la soo gaaray kaalmo wanaagsan sanadihii 2002 koobkii adduunka ee lagu qabtay Korea iyo Japan iyo waliba koobkii adduunka ee lagu qabtay German 2006 labadaasi koob adduunba Erikson waxa uu soo gaaray wareegga afardhamaadka ee koobka adduunka. sidoo kale xulka China waxaa horkacayay tababarihii hore ee kooxda Juventus iyo xulka Italy Marcelo Lippi kaasi oo la xusuusto in xulka Italy uu kula guuleystay koobkii adduunka ee lagu qabtay Germany sanadkii 2006. Lippi ayaa sidoo kale dhowr koob oo horyaalka Talyaaniga ah iyo Coppa Italia kula guuleystay kooxdiisii hore ee Juventus. kulamada kale ee dhacay ayaa waxaa ka mid ah xulka Sacuudiya ayaa waxa uu 2-0 uga awood sheegtay xulka Lebanon, halka ciyaar maanta dhacday oo u dhaxaysay xulalka Cumaan iyo Japan ay guusha raacday Japan oo 1-0 ku badiyay. xubinteennii ciyaarahana waa naga intaa. barnaamijkeennii qubanaha maantana daawadayaal inta aanu ku joojino tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.